dhammaan xubnaha golaha abwaanada fanaaniinta kooxda hiddo bahda saxaafadda dhammaantood agaasimaha idaacadda kulmiye burhaan diini faarax dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi waxaan rabaa inaan hambalyo idhaahdo maalinta afka hooyo waxaan rabaa inaan noqdo maadaama la badan yahay qofka ugu horeeya ee beeqaamiya waqtiga waxaan rabaa inaan hambalyo idhaahdo maalinta afka hooyo waxaan rabaa inaan hambalyo idhaahdo dhammaan cid kasta ee ka qayb qaadatay iyo qaybaha kala gedisan ee caalamka maanta looga dabaaldegayo waxaan rabaa inaan hambalyo idhaahdo martidiina quruxda badan ee ka soo qayb gashay oo saxaafaddu kow ka tahay waxaan rabaa inaan hal qodob dul istaago oo ay ka dhawaajisay gudoomiye ku-xigeenka akadeemiyadda xildhibaanad muxuu ahaa marin cariif uga hari maayo ee waa ta'kiidaya arrintaas waxaan rabaa inaan codsi dheer iyo cod dheer ku idhaahdo dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in la hirgeliyo dhismaha akadeemiyo goboleedka af Soomaaliga oo dhagax dhigiisa ay ka soo wareegtay 5 sano ka badan waxaan xasuusanayaa haddii aanan khaldanayn in loo dhisayay laba geesood oo ah Soomaaliya iyo Djibouti waxaan xasuusanahay inay gacanta koowaad lagu heshiiyay in ay yeelato Soomaaliya Djiboutina ay dhamaystirto sidaas awgeed waxaan codsanaynaa oo gudoomiyaha aqalka sare arrinta culays ku saaraynaa oo fariin adag uga dhigaynaa in ay sanad ka dhisanto akadeemiyadu oo dowladda Soomaaliya kaalinta uga soo aadaneed arrintaas ay fuliso oo aysan garaash ahaanin xarunta akadeemiyada waxaan intaa ku darayaa inaan idiraahdo soo dhawaada waxaan muxuu ahaa ku dadaalnay inaad xafladan noogu timaadaan maanta anigoo mar kale uu dhabarka ii saaran yahay abwaankeena saaxiibkeena Dr. Maxamed Daahir Afrax oo aan leeyahay iyo naadiga akhriska iyo qoraalka waxaan idin leeyahay soo dhawaada waa mahadsantihiin mar rabo anigu inaan waqti cuno maadaama aan ahay qoladii aroos ka dhigtay waa mahadsantihiin